mid ka mid ah baarlamaanada adduunka ugu awooda badan oo hadda ka cabanaya jiiro fara ba'an ku haya dhismaha xarunta ay ku shaqeeyaan. Intaan u gudagelin sheekadan xiisaha badan, haddii ay tahay markii kugu horeyso aad na soo booqato, waxaan kaa codsanaynaa in aad nagu soo biirto mahadsanid. Dhibaato ayaa haysata baarlamaanka dalka Pakistan. Dhibaatadaasina kuma saabsana wax la xiriira siyaasadda. Waxaa fara ba'an ku haya baarlamaanka dalka Pakistan dhismaha uu ku shaqeeyo jiir waaweyn oo xitaa abisaduhu ay ka baqaan. Jiirkaasi oo inta badan jarjaray dukumiintiyadii ku kaydsanaa xarunta baarlamaanka gudaheeda. Jiirkan oo ah nooc waaweyn oo xitaa abisaduhu ay ka baqaan ayaa waxaa qaatin ka taagan shaqaalaha ka shaqeeya dhismaha dalka Pakistan uu ku shaqeeyo. Waxayna sheegeen in aysan waxba ka qaban karin jiirkan waxyaabaha badan ku dheelay ee xitaa jarjaray qaar ka mid ah dukumiintiyadii yaalay xarunta baarlamaanka gudaheeda. Baaxadda dhibaatada uu geystay jiirkan ayaa soo shacbaxday kadib markii qaar ka mid ah baarlamaanka ay u baahdeen nuqul ka mid ah sharciyadii ay ansixiyeen 2008 iyagoo u baahday in dib ay ugu laabtaan nuqulkaasi ay ansixiyeen 2008 si ay wax ka bedel ugu sameeyaan. Balse markii ay raadiyeen nuqulkaasi waxa ay ogaadeen ama ay soo heleen qaar ka mid ah dukumiintiyadii ku kaydsanaa baarlamaanka oo intiisii badnaa uu jiir cunay. Jiirka magaaladan ku nool aad ayuu ugu waaweyn yahay jiirka kale ee ku nool guud ahaan dalka Pakistan. Waxaa sidaasi warbaahinta BBC-da u sheegay afhayeenka golaha qaranka ee dalka Pakistan. Si wax looga qabto dhibaatadan ba'an uu jiirkan ku hayo xarunta baarlamaanka dhexdeeda ayaa waxaa miisaaniyadda loogu daray dakhli wax looga qabanayo dhibaatada jiirkan. Waxaana miisaaniyadda dalkaasi lagu daray 1.2 milyan oo rubaas oo ah lacagta dalkaasi laga isticmaalo una dhiganta $4,300. Si wax looga qabto dhibaatada jiirkan uu ku hayo xarunta baarlamaanka gudaheeda. Dooliyaashan ama jiirarkan waaweyn ayaa waxa uu aad ugu badan yahay qaybta ugu sareysa ee dhismaha baarlamaanka Pakistan uu ku shaqeeyo. Waxa halkaasi ugu batayna waxaa lagu sheegay in halkaasi ay ku kaydsan yihiin dukumiintiyo fara badan. Waxa ay sheegeen qaar ka mid ah xildhibaanada Pakistan in qofka martida ah ee ku cusub aqalkaasi marka uu soo galo uu dareemayo cabsi aad u fara badan, balse iyagu ay la qabsadeen oo xitaa ay la qabsadeen shaqaalaha meesha ka shaqeeya ee qaabilsan nadaafadda dhismahaasi. Waxa ay sheegeen qaar ka mid ah shaqaalaha halkan ka shaqeeya iyo xubnaha baarlamaankaba in jiirkan uu yahay mid feejigan oo markii uu sanqarta maqlo hore ka ordaya. Waxa ay sheegeen in qofkii ku cusub dhismahaasi uu aad uga cabsanayo marka uu maqlo sanqartiisa, balse iyagu ay la qabsadeen. Wargeysyada dalka Pakistan ayaa aad u baahiyay sheekadan la xiriirta dhibaatada jiirka uu ku hayo dhismaha xarunta baarlamaanka ee dalka Pakistan. Waxayna sheegeen in ay u soo bandhigeen shirkado badan sidii ay ula tacaali lahaayeen dhibaatadan jiirka uu ka dhex wado xarunta baarlamaanka gudaheeda. Ilaa iyo haddana 2 kambani ayaa soo bandhigay waxqabadkooda ku saabsan sidii ay wax uga qaban lahaayeen jiirkan faraha ba'an ku haya xarunta baarlamaanka dalka Pakistan ay ku shaqeeyaan.